السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلشدة الصوماليات ku xiran Somali Cryptocurrency YouTube channel waad salaamantihiin. insha Allah wararkii ugu dambeeyay kriptada ayaan inaga daba geenayaa iyada oo ay taariikhdu tahay maanta 30kii bishii koowaad 2023. ha ilaawina insha Allah inaad videoga sii share garaysaan. waxaynu haynaa maanta khabar ku saabsan metaverse waafaqsan sharciga islaamiga waa metaverse ku shaqeynaya blockchain-ka Algorand. khabarka waxaa ka shiftay company-ga la yiraahdo IBF Net waana shirkad ku takhasustay inay maaragtay solutiono ama xuluul u hesho dhinacan technology-dan ama taqniyadan cryptocurrency-ga iyada oo waafaqsan iqtisaadka islaamiga iyo shariicada islaamka. waxaana la yiri taas waa metaverse-kii ugu horeeyay ee waafaqsan shariicada islaamka. taana waxa weeye waasaan sheegay Algorand blockchain-ka ayaa ka shaqeynaya hawsha. metaverse-kaas door weyn ka ciyaari doona inuu islaaxa ama waqti wanaaga ka shaqeeyo mujtamaca islaamiga ah. mashruucaas oo la magac baxay Netversity oo dadka loo sameeyo training ama tababar fara badan si uu qof kasta ula taabaco. hadda waa aragtaan metaverse-ku meelaha fiican ee xaqiiqatan mustaqbalka la isleeyahay door weyn ka ciyaari doona. waxa weeye jaamacadihii iyo kambaniyadii waaweynaa ayaa metaverse samaystay oo hawada la isku arkayo oo lagu shaqeynayo oo si ummadaha kala duwan ay uga faa'iideystaan. kambariyo jaamacado hay-ado weyn ba ka shaqeynaya dawlado kala duwan dad degan badarkaas ayagoo metaverse-ka isku arkay oo hawshoodii si sax ah u qaban doona hawshoodii si wanaagsan oo sax ah oo ummadaha adduunku ka faa'iideystaan. khabarka ku xiga waxa lagu leeyahay Nigeria wax cajiib ah ka socda marka laga hadlo price-ka ama sicirka Bitcoin-ka wuxuu u badalgulayaa 60% Nigeria gudaheed iyadoo ay dawladdu qawaaniin keentay. yani waxa lagu leeyahay Bitcoin-ka Nigeria xabadii Bitcoin-ka ah marka laga hadlo suuqyada Nigeria gudaheeda ee digital money-ga xabadii kaliya waxay gaadhay 17.8 milyan naira waa lacagta Nigeria. yani wax la qiimo ah 38,700 dollar. طبعا waa farq weyn weeye marka iminka eegtid isagoo maraya 23,200 yani 60% extra weeye oo meesha waxa weeye waa lagu kala iibsanaya waxa weeye way adkaatay in ay Bitcoin ku helaan si fudud sababtoo ah bangiyadii ayaa moogtay dhib ka jirtaa oo ay dadku isleeyihiin lacago kala soo baxa oo ay dadku isleeyihiin Bitcoin-ka iibsada. marka meesha waa laga shaqeysanaya shaqo culus baa ka socota. xaqiiqatan Nigeria waa dawladaha iminka Afrika aad ugu badan ee cryptocurrency-ga loola tacaamulo oo dawladdu xaqiiqatan iminka ka yara baqayso xoogaa laakiin ma istaajin karaan cryptocurrency si aad u ballaaran bay Nigeria u gashay. dawladaha u dhowna dawlado badan oo u dhow Nigeria ayaa iyaga laftoodu isla nidaamka ku socda oo cryptocurrency ka faa'iideysto oo lacag fara badan geliya. khabarka ku xiga waxaa la yiri cabsidii laga baqayay cryptocurrency-ga waxaa baabi'iyay tamac. yani dadku inay wixii rabaan inay galaan oo ka faa'iideystaan. طبعا indicator-kan aynu ku naqaano fear and greed tamacaasu wuxuu burburiyay cabsidii. waxaad arkaysaa ribxigiina waxa lagu leeyahay wuxuu gaadhay wax ka badan 30 bilyan oo dollar. khabarka markaynu eegno marka laga hadlo dib u dhacii ku dhacay suuqa kriptada iyo burbur badan oo la soo maray hal mar waxaa la arkay طمع ama greed. kelmadda طمع marka lagu turjumo af Soomaaliga waxay noqonaysaa bakhaylnimo laakiin yani waa hunguri oo kale. yani qofku markuu arko wixii oo kacaya coin-kii oo si fiican socda inuu galo oo isleeyahay ka faa'iideysto taas loo yaqaanaa inuu wixii ku damaaco qofku. macnaha community-yadii cryptocurrency hadda saas u shaqeeyaan cabsidii laga tag kriptada la soo wada galay Bitcoin-ka ka faa'iideystaan coin-ka kale ka faa'iideystaan. waxaan halka laga arkaa in ay dad fara badan ay sugayaan bull run weyn inuu dhici doono mustaqbalka dhow. wada aragtaan Bitcoin-ki meesha uu gaaray maanta ilaa shalay Bitcoin wuxuu gaaray wax ku soo dhow 4,000 dollar. waa yani taqriiban waa soo taabtay wax ku dhow. taasna dhiirigelin bay keentay inay dadku cabsidii ka tagaan oo ay lacagahooda soo geliyaan cryptocurrency-ga si uga faa'iideystaan. khabar kale oo aynu maanta hayno waxaa la yiri Bitcoin-ku sanadkan tacaamulaadkiisii aad bay u kacday oo waxa weeye suuqii waa shidan yahay la yiri. suuqu si fiican buu u shidan yahay iyadoo aynu arkaynay soo dhicitaan weyn aynu aragnay oo in badan socday sanadku markuu ahaa 2022 laakiin 2023 waxaad aragtaa waxaa la moodaa in wax badan iska bedeli doono. waxaa la yiri bishii January Bitcoin-ku kicitaankii uu kacayay step by step si fiican ayuu wadaa. waxaadna moodaa inuu kusii wajahan yahay 25,000 dollar waana target-kii ay islahaayeen ragga taxliilinta aad u yaqaan kriptada ka shaqeeya inuu gaari doono. waxaana la isleeyahay bishaas oo dhan saas u socon doona. markii ay eegeen dhinaca deetooyinka iyo statisticana waxaa la yiri January marka la eego waa markii ugu fiicnayd uu sidaa uu si fiican ugu socdo. marka laga hadlayo deetooyinka iyo statistica bisha January waa 10 sano ugu dambeysay oo la arkay in qiimaheedii ay kacday wax ka badan 40%. bisha baynu ka hadlanaa January 2023 waxaana la arkaa bisha January
wax ku dhow 280 milyan oo dollar cash ah oo lacag ah oo suuqa cryptocurrency la soo geliyay iyada oo la yiri bitcoin iyo ethereum-ka waana labada coin ee suuqa control weyn ku haysta inay wax ziyaada ah qiimihii ay kor u kaciyeen wax ka badan 40%. طبعا coin badan way jiraan oo iyaga laftooda altcoin-ka kale iyaga laftooda moogtay dhaqaaq fiican sameeyeen intaasay insha Allah taala maanta naga tahay akhbaar badan oo fiican oo soo socdaan bishan February wax badan baa la yiraahdaa soo socda طبعا هذا إنك معها مسؤولية المقاديو لكن هو خبرة كريبتوكرنسي أجنبية آد مقطع مشى ولا حاجة إديتوين كتحليلين كسمية في عن تحليلين آد برا كسمية هي أخبارها بنك لقى سوقاتها مركز إن شاء الله هلك إنه أخبارها كلا سعنه إن قد بقيو هاي لون إن كانال كسبسكرايب سرتان أو لا سعتان سي أن مركز أخبارها سوق كريبتوكرنسي إن قد بقيو كم بليل كان الريح سي نوتيفيكيشن كوسو لو حكست كوسو قالوا لايكنا إن شاء الله كوب خيرنا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته